subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho qodobada ugu door koran waxaa kamid ah dawladda federaalka ayaa faahfaahisay duqeyn ka dhacday deegaanka Kuunyo Barow ee gobolka Shabeellaha Hoose al-shabaab ayaa sheegatay in duqeynta Kuunyo Barow lagu dilay nin ganacsade oo caan ka ah deegaankaasi taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ayaa mamnuucay hubka sharci darrada ah iyo gaadiidka muraayadaha madow taliska Mareykanka ee Africon ayaa war ka soo saaray duqeyn ka dhacday Shabeellaha Hoose wadayaasha gaadiidka wadada isku xirta Muqdisho Afgooy ayaa ka cabanaya xirnaashaha wadadaasi wadayaasha dhaqanka beelaha ku dagaalamay degmada Kaxda ayaa gaaray heshiis hordhac ah oo isafgarad ah magaalada Beledweyne ayaa ka soo kabanaysa fatahaadii u geystay webiga Shabeelle wararka dibaddana waxaa ka mid ah Israa'iil ayaa sheegatay duqeyn la beegsaday xarumo military oo ay leeyihiin militariga Syria iyo hay'adda Amnesty International oo Mareykanka ku eedeysay inuu ku xadgudbay xuquuqul insaanka ismaqal wanaagsan subax wanaagsan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena subaxnimo ugu door corona waa subaxnimo Arbacada taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 20-ka bisha 11aad ee November 2019 ku soo dhawaada warkii subaxnimo oo fidsan taliska Mareykanka ee Africon ayaa war ka soo saaray duqeyn ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose Cabdicasiis Siciid Beered ayaa inoo haya taliska Mareykanka Africon ee Soomaaliya ayaa warbixin ka soo saaray duqeyn ay sheegeen inay ka fuliyeen qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose taliska Mareykanka Africon ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in duqeyntan ay ka fuliyeen deegaanka Kuunyo Barow oo kamid ah deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose war-saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka Africon ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in waqtiga duqeyntan ay fulinayeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadeen al-shabaab deegaanka Kuunyo Barow iyo sidoo kale deegaano hoostaga waqtiga waxaynu ogaanay isla markaana socday dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadeen al-shabaab waxa aynu dilnay mid kamid ah dagaalyahanada al-shabaab duqeyn ayaynu ku dilnay ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka Africon ee Soomaaliya weerarku waxa uu ka dhacay deegaanka Kuunyo Barow waxa aynu burburinay saldhigyo ay al-shabaab lahaayeen sidoo kale awoodoodana ay ka soo abaabuli jireen ayaa lagu yiri taliska Mareykanka ee Africon wax faahfaahin dheeraad ah kama uusan bixin duqeyntaasi marka laga soo tago inay sheegaan inay ka dhacday deegaanka Kuunyo Barow isla markaana ay ku dileen hal dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab
taliska mareykanka ee africom ayaa kordhiyay duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab tan iyo markii maamulka mareykanka uu la wareegay madaxweynaha dalka mareykanka Donald J. Trump oo sanadii 2017 wixii ka dambeeyay faray wasaaradda Pentagonka ee dalka mareykanka in la kordhiyo duqeymaha ka dhanka ah kooxaha ay ugu yeeraan al-Qaacida iyo sidoo kale argagixisada kuwa ay ka fuliyaan qaybo badan oo ka mid ah wadamada caalamka gaar ahaan Afrika. aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Siciid Beereeda. dowladda federaalka ayaa faahfaahisay duqeyn ka dhacday deegaanka Kunya Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhinaca kalena al-shabaab ayaa sheegtay in duqeynta Kunya Barrow lagu dilay nin ganacsade oo caan ka ahaa deegaankaasi. wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in deegaanka Kunya Barrow ay ka dhacday duqeyn lagu bartilmaameedsaday xubin ka tirsan al-shabaab. howlgalkan ay si wada jir ah u fuliyeen taliska Mareykanka ee Africom iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen in howlgalkaasi lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab. howlgal ballaaran oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Kunya Barrow ayaa lagu sheegay in wax khasaare ah uusan ka soo gaarin shacabka ku nool deegaankaasi. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Amisom ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay kordhiyeen dagaalada ay kula jiraan al-shabaab iyadoo Mareykanka uu fuliyay duqeymo dhowr ah kuwaas uu ka fuliyay gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. al-shabaab ayaa sidoo kale war ka soo saaray duqeyntaasi waxayna sheegeen in duqeyntaasi lagu dilay nin ganacsade ah oo lagu magacaabi jiray Ismaaciil kaasoo ay sheegeen in si weyn looga yaqaanay deegaanka Kunya Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose. taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ayaa mamnuucay hubka sharci darrada ah iyo gaadiidka muraayadaha madow. iyadoo degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud laga mamnuucay hubka sharci darrada ah iyo waxyaabaha maanka dooriya ayaa sidaas oo kale waxaa taliska booliska Dhuusamareeb ay mamnuuceen hubka sharci darrada ah iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb laga mamnuucay hubka sharci darrada ah iyo sidoo kale gaadiidka muraayadaha madow. ciidamada ammaanka ayaa xalay Dhuusamareeb ka sameeyay howlgallo baaritaan ah kuwaas oo lagu xaqiijinayo amniga iyagoo lagu arkayay wadooyinka Dhuusamareeb iyagoo baaraya gaadiidka. taliska booliska ayaa waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgalkan iyaga oo sheegay in howlgalladaasi lagu sugayo amniga ayna iska kaashanayaan dhammaan laamaha amniga ee taliska booliska Soomaaliya. wadayaasha gaadiidleyda wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa ka cabanaya xirnaashaha wadooyinkaasi. mid ka mid ah gaadiidleyda wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo lagu magacaabo Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in ay ka cabanayaan xirnaashaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. waxa uu sheegay in laga qaado lacag dheeri ah oo canshuur ah isla mar ahaantaana aan loo ogolayn inay maraan wadada dheer isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. waxa uu sheegay in gaadiidka qaar loo ogol yahay inay wadadaasi maraan isla mar ahaantaana ay dhibaato ku qabaan in ay waraan wadadaasi. gaadiidkii dhaqaalaha ka qaadaa wadooyinka waa laga xiray wadadii ka imaanaysay Shabeellaha Hoose Afgooye iyo aniga gaadiid ka shaqeeyanahay oo basaska oo loo yaqaano gaadiid yaryar sida mootooyinka kala ku shaqeysanaya anigina waa naga xiraya oo noloma ogola oo gaadiid hadda fara badan oo ilaa dhowr iyo 10 baabuur ka baaba'shay muraayadaha dhulka lagu riixay. hadda ma garanayna walaasha nafaana qaabku noo saaray anaga dhaqaalana waa bixinaa oo waxaan ka qaadaa lacag leeyahay koonfur galbeed waan ka qaadaa oo prismitral leeyahay oo $7 oo bishii 3 bilood la waxaan ka cabanayna wadada Afgooye iyo isku xirta iyo xamar waayo shaqa laga hayaa state anaga shaqada kontraari kuma nidin shaqada anaga danteena laga shaqeeyaa waan ogolahay balse gaadiidkii wuu socdaa oo hadda 2,000 oo baashi bajaajka ku jirta meesha gaadiidka bajaajka waa laga xayiro oo mari kartina nadiira. Maxamuud oo sii hadlayay ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in laga qaado $2 oo joogto ah isla mar ahaantaana bishii laga qaado $3 oo aruuraysa. waxa uu sheegay in culaysyo kala duwan ay ku qabaan xirnaashaha wadadaasi isaga oo sheegay inay marmarka qaar ay maraan wadooyin qardajeex ah taasoo keentay inay dhibaatooyin badan kala kulmaan. fiiriyo dhaqaale badan laga qaadaa
maalintii lacag maalinlaha la ka qaadaa oo $2 maalintii 43 kuna oo ka qaadaa ex control lacag $3 la ka qaadaa xamarna transmitera xamarna ilaaho ayaa $47 waxaa laga qaadaa lacagta koonfur galbeed lacag anaga dhaqaalaha laga qaadaa oo maartay markii la hadlo dib baan qabnaa oo anaga culayskaas na saaran waa tahay dala ku shaqeynaa ma haysano waa joogto waaye gaadiidka waxa weeye markii 4 bilood ku jirnaa kulana baabuurta duurka baxaaka ku baabaanay wadana lama samaynin adduunyada wax kala dhacdo wada waa laga shaqeeyaa bartana waa la hadlaa ballaa waxa ku safrayna laakiin dadka biraadku maxaa ma qoonaya dhaqan ma oranayaan 4 bilood hadda la soo dhaafay iyo 5 bilood hadda dhiman intaas macnaha waa arin iska anigu ma rabnaa buuq iyo dowladda cunno oo maartay ninka xasaradeen ma gudbin xabashada ma gudbiyaan maartay ninka aan bareeyna oo dadka mahawada maartay marka ku shaqeeyaan arintaas in maartay ninka arintan la soo farageliyo loo gaado waa tahay inta buuqa kana dadweynaha waa gooni anigu ma rabnaa xasad iyo abuur ma bareeyno ما بدنا هذا كفر البلد أنا شو حاول كفر البلد أنا حكومة أنا وحاول نوكا سوا ما أعرف نكلي واحد وأظن بقى كرام سماع ضد ما أعرف نكلي جاي بدني سكش قرا ها وأروح أنا جاي كل ما عبدنا وحيد والله لكن لما كل وبتاسع كنت ماشي أو شغالي كمان ثلاث ساعات أو شغالي ما تعبنا وبقيت وشغال سنة يعني أنا وراح أقول لك سكر ونصارية si kastaba haatee hadalkan ka soo baxay mid ka mid a gaadiidleyda wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa ku soo aadaya iyadoo dhismo uu ka socdo wadada dheer isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxaana sidoo kale gaadiidleydu ay sheegeen inay dhibaatooyin ku qabaan marista wadooyinkaasi. magaalada Beledweyne ayaa ka soo kabanaysa fatahaadii uu geystay wabiga Shabeelle iyadoo dib ay ugu laabteen qoysaskii halka ka soo barakacay. عدفتاح مؤمن الكعسي أيها نهاية xilli maalmihii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne ay ahayd mid markaasi fatahaado hor la ay ka dhasheen isla markaana ay saameeyeen bulshada ku nool magaalada Beledweyne ayaa iminka waxa ay tahay mid markaasi ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii kala duwanaa ee uu geystay bulshada ku nool halkaasi mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay raadiyaha Simbe Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in markaasi xaaladda magaalada Beledweyne iminka ay tahay mid markaasi ka soo kabanaysa fatahaadii horta lahayd ee ku dhufatay bilooyinkii ugu dambeeyay waxaana uu sheegay in dadka iminku ay yihiin kuwo dib ugu soo laabanaya guryahooda taasina ayuu sheegay in ay tahay mid markaasi ay ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii hore u gaaray والله dadku waa ku laabanayeen bariyahan dhan dadku kale ahaayeen awal hadda waxa bilowday xilligii dabaylaha ayaa bilowday dhulkiina waa booroon ahaayeen awal oo isku raran waxay ku ahaayeen meel oo qaxooti ku ahaayeen maadaama carradii baxday dadkiina ay yihiin dad aan musqula haysanin diidiina laga goostay waa magaaladii badankood hadda labadan beriye aad ugu noqdeen awal kale ahaayeen magaaladii hadda waa lagu soo wada noqday inkastay dadku ay ka wada baqayaan cudurro sida ugu badan hadda magaalada ka jirto magaalada dhexdeeda karoodiyo cudur la yiraahdaa dadku ku badan yihiin midaan waa tahay sida kaneecada kaleeto aad ay ugu badan tahay hadda aad dadku boqolkiiba yani 40 ay karoodiyo ay la wada xanuunsan yihiin kaneecadiina ay ka sii daran tahay marka dadka iyagoo cabsanayo aan tegi karin haddana waxay iska cararayaan maadaama awal waxa la bedelay dhagaxa magaalada banaankiisa oo kuleelna sii noqday dabeelna sii noqday iska soo noqdeen dantu saasay ku qasabtay dadku shalay iyo maantayna aad ay u socdeen baabuurta aad ay u guurayeen asigoo sii hadlaya ayaa waxa uu sidoo kale uu sheegay in goobihii markii hore ay u barakaceen ay iminka yihiin kuwo markaasi ka dhashay daweelo taasina ay sababtay in ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii ay markii hore ay ka barakaceen asigoona ka hadlaya isla markaana sharaxaya ayaa waxa uu yiri awal meelaha ay bedelaayeen biyo ayaa loogu geyn jiray oo booyada biyaha wareegi jiray oo u shubi jiray xaafad looto walbaba 4 qoys 5 qoys ama 10 qoys meel u tiilay oo loogu wada shubi jiray biyuhiina way dhamaadeen dabayshiina way bilaabatay oo dadku waxay mas'uuliyadooda u ahayd duurka u ahayd marka maadaama ay dabaylihii bilaabatay dadkii oo magaalada Beledweyne joogay oo hal meel oo kaamo qaxootiyo iskugu tagay hal xaafad iskugu tagay
waa dareemi kartaa meeshii oo aan musqul lahayn oo musqulo badan aan lahayn dadkii oo dhowrka iska waragalayo iyo dareemihii bilowday caafimaaddadaa kasoo wajahday iyo biyo la-aan keensoo samay iyo kuleyl waa tahay sidee wallaahi had jirtaan qoysas badan oo aan arkay aniga sida xitaa qoysas badan oo aniga xataa guri aan dhisanayo kaleeto soo galay aa jiro oo soo degay agteeda soo degay banaanada iska soo degay oo guryahoodii weliba qoyan yihiin kuna laabo waayo guryahoodii meeshiina joogi waayo magarad dadku waxa waaye dadna waxay xaafad waxa waaye xaafad biyaha iyo degeyna ayaa jirta oo biyaha ayna weli ayna ka qalalin xaafadna xaafadda lacag oo biyihii ay ka qalaleen mar hore ka baxeen magaalada beledweyne ayaa waxay ka mid tahay goobaha sida weyn uu saameynta xoogan uu ku yeeshay fatahaadda webiga iyadoona daadad iyo weliba webiga shabeelle ee mara halkaasi uu ku suurugmaday xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taasoona ay sababtay in ay gebi ahaanba bulshadii ku nooleed ay ka barkacaan kuwaas oo barkac in muddaha ku ahaa duleedka magaalada beledweyne iyo weliba deegaanada kale ku dhow taasi ayaa sababtay in ay markaasi ay bulshada ku nool halkaasi ay dib haatan ugu soo laabtaan guryahoodii oo ay markii hore ay ka barakaceen iyadoona dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmeen intii ay ku sugnaayeen goobihii ay markii hore ay u barakaceen balse iminka ayaa waxa ay tahay mid kasoo kobanaysa dhibaatooyinkii kala duwanaa ee uu gaaray magaaladaasi. odayaasha dhaqanka beela ku dagaalamay degmada Kaxda ayaa gaaray heshiis hordhac oo lagu xalinayo dhibaatooyinkii ka dhacay halkaasi. Nabadoon Cabdiqaadir oo la hadlay idaacadda Simbe magaalada Muqdisho oo kamid ahaa beelihii ku dagaalamay deegaanka waxaana sheegay in ay gaareen heshiis hordhac ah taasoo keentay dhibaatooyinkii ka dhashay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir iyadoona halkaasi ay isku dagaaleen beelaha halka wada degaa. waxa uu sheegay in maalinta Khamiista ah ee soo socota ay gaari doonaan fadhi kaas oo lagu xalinayo xisadii maalmihii dambe ka taagneed degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. يعني waxa la gaaray in yani xabad joojinta soo gasho kabacdi loo gudbo Khamiista iyo Jimcaha gobol labaad yani in dib loo soo saaro ayaa laga balan isku dayaan arrimahaas waa hadda yani laga tashay oo la go'aanka laga qaatay waa colaadii halkaas yani dadka qaarna ku dhintay qaarna ku dhaawacmay oo dhibaato badan yani degmada ku saameysay. والله دي waa oo deegaan isla degan waaye wax hadda yani aan yani ciifamada aan lahayn baa wixii ka kaceen kabacdi halwaaka halkaas uu yani kasii balaasay. الحمد لله إلهي بقى يعني معذر تقبلنا يعني ولا سوق بالله وتلاوي زينة وهرمز لا هنا قارين وأنا فرح سماه مقص إن شاء الله قبل بلدن بقى هذو اللي ده اللي شيء ما فيس كلامات سبعة ما قلبين ولا لحدين غيرين يقلبين يقول يعني وإذا ما انتهي ما أنت خميس ساعة لو بلفية ساعة قبل مقص أنك ورجع وكي أنا هريك كل شيء يعني ومتلقي يعني حبض يكون يفسدي جدي وحل طيب والله قوة برم بايمن ولا برم بسوق برم ما أقدر هكذا وأنا أحسبه kaasina waxa uu ahaa nabadoon Cabdiqaadir oo ahaa mid kamid ah nabadoonnada beelihii ku dagaalamay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaana sheegay in la xalin doono khilaafkii soo kala dhaxgalay labadii beel ee halkaas ku dagaalantay. halka wararkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho. imikan wararkii dibadda Israa'iil ayaa sheegtay in duqeymo ay la beegsadeen xarumo militari oo ay lahaayeen militariga Syria iyo Iran. militariga Israa'iil ayaa shaaca ka qaaday in jawaab militari ka bixiyeen kantaalo shalay lala bartilmaameedsaday xuduudda wadamada Israa'iil iyo Syria ee buuraleyda Golan Heights. afayeen u hadlay militariga Israa'iil oo lagu magacaabo Colonel Fiji Adria ayaa sheegay in gantaalo ay la beegsadeen xarumo iyo saldhigyo militari oo ay lahaayeen militariga Syria iyo Iran. waxaana intaa ku daray in gantaaladaasi ay jawaab u ahaayeen gantaalo laga soo riday dhinaca wadanka Syria. gantaaladaas oo lala beegsaday saldhigyo ay ciidamada Israa'iil ku lahaayeen xuduudda wadamada Syria iyo Israa'iil ee Golan
hayta. dhinaca kale saraakiil ka tirsan militariga Syria ayaa warbaahinta Syria u sheegay in qalabka difaaca wadanka Syria uu awoodo inuu dhulka soo dhigo gantaalada goobaha fogfog oo laga soo rido isla mar ahaantaana waxay sida ay u sheegeen wakaalada wararka ee dowladda Sana. warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Simba inta ayuu ku dhan yahay nabadgelyo. أهلا وسهلا سهلا. ورني وقورماتي من دبدان بكوكو أوغاي. أنا شليا إمد. شلماتي من. الحمد لله. مرقى حالي هذه الدار. حي. وحنا مغلا سيمبا. بابريجها سيمبا. سيمبا ده محبني اليوم. إذا عدبوا سيمبا عليرا مقعد. سيمبا اللي واحد ساعد كذا ولا كساوينك. ساسا سيمبا ناكوجا. راديو سيمبا وإذا عد إسلام كي ومدى صد حيسو وجدد جودي أبارتي كشقيس جودي أبارتي كشقيس جودي أبارتي كشقيس.